السلام عليكم صاحب يال كسر وهذا مقال كان ما أنت حربا أنا كقوله وذاقو وآد مهم تهاي إن آد أوجاتو آد نلاش هذا أنا كسرته قلب كان ما أنت حربا مقال كان أنا كله الله وأن كوسو قد بيو وجوجينتا يسكدينتا of thinking كي يسكاس كسائد We're in this together. Breakthroughs are happening. Treatments are evolving. The stats can change. Society can change. We can all say, not today. Not today. Not today. Not today. noloshaada in aad maanta oo dhan 24 saacad overthinking iyo fikir tiro badan aad ku mashquuliso sidoo kale aad stress iyo welwel aad waqtigaaga ku lumiso noloshaada ayay 0 under 0 ay keenaysaa oo eber ay ka dhigaysaa baabiinaysaa waxyaabaha keena qofka inuu noloshiisa horumar ka gaari waayo waxyaabaha uu rabo inuu sameyn waayo waxyaabaha uu rabo inuu ku tallaabsan waayo goolasha u degan iyo hadafyada uu leeyahay inuu gaari waayo waxyaabaha keena waxa kamid ah in qofkii stress shakhsiyan uu haysto stresska waxyaabaha uu keeni kara waxa kamid ah in aad maaragtay meeshii aad howlahaaga aad focus ka saari lahayd in aad maanta dhanka welweleysid ama aad ka fikiraysid howlo kale aad ku jirtid oo aad isku buuqsan tahay sometimes waxa laga yaabaa hadii iimaan uusan ku celinin in noloshaadaba aad marka qaar halis aad u geliso hadafka aad u raadinaysid lacag u raadinaysid aad rabto inaad wax u tabacdeed aad rabto inaad mustaqbal ku shaqaysid aad rabto inaad wax u barato aad rabto inaad isku filnaataan wax kala maahane waa noloshaada inaad farxad hesho weeyaan adduunyada maanta waxaad maqashaa hebel baa isdilay heblaa isdishay boqolaal malaayiin kumanaan ayaa sanad walba markaasi naftooda gooyay sababtay naftooda gooynayaanna waxa weeye wax kala maahan waa stresska iyo welwelka weeyaan 72% of people are struggling with stress. 70% have at least one feature of burnout, and we are seeing a rise in mental health problems like we've never seen before. What's happening? Isla yaab leh ayaan dhageystay inaad dhageysateen oo laga yaabo oo Sheekh Mustafa ka sheekeynayo wadanka Faransiiska in inta isdilkii ku batay ay fureen xarun yani looga hortago isdilka xaruntan waxay ugu tala galeen yani khuburadii iyo culimadii furay oo markaasi oo dhanka Faransiiska ahayd in ay ogaadaan ka hor qof intuu isdilin horta sababta uu dilaayo hadii ay jirto sabab qofkii lagu badbaadi karo oo mentally loo dhisi karo la waani karana qofka la badbaadiyo hadii ay soo baxdo inaan qofkaasi yani fikirkiisa la bedeli karin loo fududeeyo qaab fudud markaasi loo dilo xaruntii kumanaan malaayiin qof markaasi aad oo soo gelisay oo safkii u soo gashay marka inta isku laabteen culimadii Faransiiska ahayd waxay dhaheen saan suuragal maahane xaruntan hal iska xiraniyo qof walba gurigiisa ha isku dilo runaantii farxadda meesha ay ka raadinayaan dadka gaalada ah ma ahan meesha yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala farxadda inaga galiyay farxadda halka ay naga jirto waa in aan Allah subhanahu wa ta'ala ka baqno aan cibaadaysano Allah aan ku xirnaan first one the second one waxa weeyaan in aad noloshaada aad schedule iyo jadwal aad u samayso in aadan isku mashquulinin adduunyadan dhan aadan hamigaaga ka dhiginin inaad aakhiro hamigaaga ka dhigto Ilaahay wuxuu ku subhanahu wa ta'ala hadii aniga aad iga baqdo aad iga cabsato meel aadan filanaynin ayaan markaas ka irsaaqi doonaa risqi ka siin doonaa wada aadan furin aniga ayaa ku furi doona marka stresska noloshaadu baabiinaya jirkaagu baabiinaya maskaxdaadu dilaya mentally dilaya ilowshaha ugu badanaya inaadan waxba xasuusan sometimes waxa arkaysaa shay aad gacanta ku wado telefoon aad gacanta ku wado adigoo raadinaya waxaad arkaysaa in howlihii schedule-kii aad degsatay sanadlaha ahaa aad degsatay asbuuclaha ahaa aad degsatay bilaha ahaa in aysan one thing aysan kaga yani suuragelin sababtoo ah subaxdii markaad soo kacdaba waxaa kuu qoran 20 dhowr shay baa kuu qoran dhowr iyo 20 shay baad ka walwalaysaa sida uga qabataa stress baa kugu furan buuq baa kugu furan adiga dhan maba joogtidba shaqadaysana focus lahayn ma suuragelayso marka the first one aan rabo inaan muuqaalkan aan kugu soo gudbiyo aad stresska welwelka u hortay karto waxa weeyaan in Allah subhanahu wa ta'ala aad ku xirnaato the second one waxa weeyaan in aad schedule aad samaysato oo noloshaada aad ogaato horta inay u baahan tahay smoothly in nolosha lagu socdo jawi degan u baahan tahay focus in u baahan tahay waxa arkay in Soomaalida muddooyinka dambe ay ku soo badanayaan culimada psychology-ga iyo sidoo kale maskaxda dadka ka daweeya maxaa yeelay stresska halka uu galo waa mentally qof u jiranaya ilowshi baa kugu badanaya xasuusiyada kugu badanaya jir ahaan baad u dhamaanaysaa waxaad arkaysaa dadkii ku dhahay warni hebelow maxaa ka qaldan waa yani waad fiicneeday waad baabaaday seed wax wada
marka waxyaabahaas oo dhan waxa keenay waa stresska balse adiga waxa laga yaabaa inaadan ogeynin oo marka adiga isfiirisa ahaanta jirkaaga aad fiiriso cuntooyinka saddexda waqti waa cuntaa wax fiican baad cuntaa waay ay ku geli la'yihiin waqti fiican waa jiifataa waay ay isu bedeli la'dahay waad intee lagaa haystaa waana isweydiisaa walwalku wuxuu noqon karaa inaad ka walwasho imtixaanku yaalo kale gaar ahaan ardayda form 4ka oo kale xillidan kale imtixaan galaysa waxaa u baahan tahay inaad walwalka dhan xagga iska dhigto Allah subhanahu wa ta'ala inaad tala saarato ducooyinka aabadis aad dadaasho bas khalaas wixii dhici waa dhacay laakiin dad walwalsho maxaa dhacay in intii aad taqaanay ay ilowsha kaaga luman adilowday in mental ahaan u dhimatid in jirkaaga inuu isdhimo in aad adiga dhan duruufaysnaato in aad jir ahaan iyo muuqaal ahaan iyo maskaxaanba aad isu bedesho taas ku keeni kartaba inaad wax aad ka walwaleeday aad ku fayl garowdo sideedanba walwalkana wax aan failure ahayn ma keeno oo haddaad shay ka walwasho shaygaasi automatically waxa ah in markaasi last result-ka aad helaysid in ay noqon doonto valid ama inaad ku fayl garowdo shayga maxaa yeelay shay intaadba wanaajin lahayd oo aad focuska shayga saari lahayd waxa ka xoog badanaya waxaa weeyaan tartan kala ka socda maskaxdaada mentally ahaan baad waxaad ugu jirtaa shaqo kala maskaxda ka socoto stress ama guulda ama dhacda ama ku guuldareysta ama suuragali weysa waxyaabaas dhan ka fikiraysa marka insha Allah iska dhaaf walwalka kaliya shayga aad rabto focus ka saar diiradda saar qabo ha ka walwalin haddii 10 shay maanta ku tiilay oo 5 aad ka suuragalisay ama 5 aad ay ku suura gashay ha walwalin warqadii qalin soo qaado qoro 1 2 3 4 aan qabtay waqti aan qabtay waqti lama aanan qaban maxaan qaban waay hadii aan kan qaban lahaa soo kan masuul gelin lahaa is good to maanta way dhacday laakiin bari toole yey dhicin waa inaad waqtigan firaaqada ah aad gelisaa hawlahan si ay hamiinka ku xiga ay si nabad kugu soo dhamaadaan marka insha Allah saas oo kale ayaa laga baahan yahay inaad walwalkii stresska asaga maaraysid arjeena muuqaalkan wax uun inaad ka faa'iiday haba yaraadaane asxaabta la sii wadaag haddii aad xiiseynayso muuqaalada teknolojiyadda sida development-ga iyo horumarinta bini'aadamka nagu soo bir waad mahadsan tahay muuqaalka xiga ayaa noo balan insha Allah